warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal habeenkii xalaha ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan agarka Siinka Dheer. Dagaalkan ayaa la sheegayaa inuu u dhaxeeyay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan oo sida la sheegay saldhig ku lahaa duleedka magaalada Muqdisho. Inkastoo aan la xaqiijin khasaaraha ka dhashay dagaalkan ayaa dhinaca kale waxay warar ku tibaaxayaan in dadka deegaanku ay maqliyeen dareenka rasaas dhinacyadu isku weedaarsanayeen aagga dagaalka uu ka socday ee Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana dhankooda ilaa hadda war ka soo saareen dagaaladaasi habeenkii xalaha ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, waxaana warar ku tibaaxayaan in dagaalkan uu yimid ka gadaal kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Siinka Dheer, taasoo markii dambe sababtay in dhinacyadu ay isweydaarsadaan hubka noocyadiisa kala duwan. Dhankooda Shabaab ayaa iyaguna sidoo kale ilaa hadda war ka soo saareen dagaaladan, iyagoona la sheegayo in muddooyinkii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah duleedka magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen weerar kala duwan ay fulinayeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. caynul caafiya hosbital waxa uu kaa daweynayaa xanuunka baabasiirka. ma dareemaysaa dhabar xanuun, caajis joogto ah, cuncun dhanka hoosa, saxaradoo kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha? haddaba iskaga ciribtira xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn. wixii faahfaahina kala xiriir telefanada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777.